waxaa ku jira abwaan yaasiin adoon oo abwaankeena weyn ah halkaan ka salaamay asigana waxaa ku jira sheego shumis madiina ku jiray waxaa ku jira gurey waxaa ku jira faysal waxaa ku jira saciid looma kala maqneen maxamed jubbo actorkeyga kale ayaa ku jiray oo mataqaanaa oo riwaayadaha abukar ilyas abwaankeena waxa ka dhigay marka waa wuxuu ahay filmaan kulligood action ah filmaanteen waxaan jeclaan lahayn maadaama oo filmaan action oo xabadan oo nool lagu jilayo bal inaan dib u xasuusino daawadaasheena sharafta leh bal nala daawada filimkii haddaan la kala bixin difaaca noo adkeeya ragga meelahan kama dheer soonaha waa soonay ku qareebtaan ninka dabaqa ma fuula naga ilaali waa xag u kala baxa socda iska fiiriya tartiib ya kala dhunta dhabar jimid soo suubi adiga yuusan idinka fakan runta idiin sheegaan aw ka bax xagga ka ordadiga si fiican fiiri ninka difaacan naga adkeeya hal idin gaabo bullshit حسنا والوحدة ما جوا ماشي رصاص البدن اللي كمان كنا فكرنا قرينا نكتنو دي كان البدن صصعد واحد ما تريسنا ذكر قرينا إيجا لابي ما هني إيمو فكرنا sidaad u daawateen filimka actionkiisa iyo sida xabadaha loo ridaayo haddana waxaan kusoo noqonayaa actorkeena jilaageena weyn cabdiqaadir qordheere filmaanta jacaylka oo aad dishay hal ilow maxaa ka xasuustaa horta waxyaalo badan ahayd horta waxaa jira filim sheekadii filaweyn filim waa waxaa ila waday allah naxariista makra caraya ayaa birim actor ahay filimkaas magaxa Banaadir walaashiisa ay dhashay abtiga isku ahay gurigeena suuq ee dhashay kiyaalay hada gurigeena anaka markaas aan filim ku dhigan oo markii ayaa wuxuu lahayn suuq ee dhashay hal gabar oo qaba gabadh oo qabo waxay jeceshahay makaraan caray wuxuu leeyahay biyo leeyahay oo mira waa xogsado waay makaraan filimkaas waxaa dhacday marka filimkaas inuu markii yiraahdo ninkan ito yimid war ninkan aniga abtiyo ilaa abtigay waxaan leeyahay abti nin biyo leemo meeray jecesha gabadha dhash gabadha adiga dhashay waxanaaqa marka darbaxshir noo ugu dhufana yani filmaanta markii oo wado oo aabbaha yahay ama waalidku yahay laasim waaye horta xoogaa in lagaa gashto laasim waaye oo lagu dilo kaamirada adoo xanaaqsan lee fiirinay ma fahamta okay waxaa dhacday wuxuu yidhi adoo joogto say nin kale u aragtay abti maxaan sameeyaa maxay tahay laga qabo darbaxshir ninka isdhaafsi leeyahay hadda usoo dhamay ninka dib marka maxaa samaysaa dil maxaa sameeyay xataa ninka waa wada meelan geey askarteedan ku dalbaday waa la dilay oo saasa wada loogu saaray anigana saasa xoog li ugu daray
marka yaa kale oo ilaa waxaa waaye waqtigaas lama yaa kale filmkaas filwa oo ku jiray oo lagu waday. ajarkiisaa ku jiray allah u naxariistay makar caraay labadaba waa dhinteen allah ya raxam raaximiin mataqaanaa ii sheeg waa maka xaji banaadir ku jiray markaas filmkaas filwa yaa iska lahay oo abwaan abuukar lees ayaa iska lahay ayaa iska lahay marka mataqaanaa ii sheeg waxaa waaye wax walbo waa abwaan yar oo haddana fikrad yaab la keenso oo keeno u ahay ma fahamtay abwaaniinta soomaalida asaa ugu yarahay abuukar haddana wuxuu keenay fikrad yaab leh wuxuu yidhi dadkan maalin walba jaceylka iyo anigu ilaa filmka jaceyl ani filmkii hore male iyo maonroon iyo filmaantaasaan soo dhigay jaceyl ay hayeen wuxuu yidhi mama rabo cabdiqaadir inoo jecel dhigo waxaan rabaa filmaan action ah inaan u bedelo filmaantiis maasha allah maadaama oo abwaankii abuukar idin ahay oo fikrad cajiiba la yimid waa abwaankii waxaan oran karnaa waa abwaankii ugu horeeyey ee keenay filmaan actiona si fiican sida taariikhda aan ku hayno waagii hore si fiican riwaayadaha maxaan soomaalida hore oo dhan tiyaatar lagu jiri maxaan wixii film la dhiga xataa marka waxaan oran karaa dadkii ugu horeeyey ee film action sax ee Soomaaliya dadkii sameeyay adna waxaad noqotay actorkii ugu horeeyey ee filmkaas actionka sameeyo qayb libaaxana ka qaatan sameeyay si fiican inta ugu dambeysay filmaanta actionkaani aan wada sameynay markaas kabacdi waxaa la bilaabay filwa waxaa lagu xijiyey arxan laay waxaa lagu xijiyey mataqaanaa ii sheeg amar 1 iyo amar 2 film waxaa jirta oo hooyadii aan guursan rabo xataa oo yaab leh oo mataqaanaa abwaanka sameeyey maasha allah fahamtay maasha allah laakiin markii dambe oo mataqaanaa ii sheeg nala kala qabanayo dhaha rooya utaa wiilkaani adaa dhashay hebel wiilku kaa dhala waa ninkaani mataqaanaa ii sheeg maasha allah haddii aan su-aal ku weydiiyo actorkeena qiimaha leh jilaageena Soomaaliyeed maadaama horey aa soo samayseen filmaan action iyo filmaan jacayl ah marka dib muu soo samayn doontaa filmaantii hore filmaan kasii casrisan oo action ah oo qiimo weyn leh oo bulshada Soomaaliyeed ka wada heli doonaan bal fikrad noocaas dib muu samayn doontaan filmaan noocaas sax najiib horta waa sax abwaanka naftigiisa inuu dib u soo nooleeyo youtube oo abwaanka leeyahay ee shacabka Soomaaliyeed fiirsadaan waxaa ku dhaliyay marka aniga arkay nin waxaa arkay ugaan dheesmiya oo af Soomaali inta loo turjumay Soomaalida ay fiirsanayaan oo dhaa wallah xabaddan way shidan tahay xabaddan waa saan nin u turjumay af Soomaaliga ma yaqaanaya ونينا أترجمه فهمتي ماشي وحاول تقرأ وحكى بحذي في المانتي الصومالي اللي جو برتوش الصومالي أي كين يجيرون أنا ماشي كبحذي وهذيك أنا أكتر كاتكه كبحذي اللي واحد كقاعدين ربي كبحذي مركب ما دام وقفنا أحسن هاي موجود جرتان إن في المنطقة السكولة دب سوء لسان هذا مو فيلم عصب هذا مو فيلم عصب أيام سميننا أو أكشن marka ma noo sheegi kartaa filmka cusub action ka ah si hor dhaca magaciisa